عويسين wanaagsan saaxiibada qaaliga ah ayo meel ka soo caalamka naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijkeena xiisaha badnaa ee xidigaa aad uga barateen inaan kaga soo tabino telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada London barnaamijkan oo alaaba marti igu noqdaan fanaaniinta kala duwan caawo talo maxaan iraahdaa waxaan iraahdaa oo kaliya wariye ama fanaan waa mid kamid ah fanaaniinta sida aadka loo jecel yahay ee ku nool dalkan Ingiriiska horena waa ahayd wariye ka tirsan bahda warbaahinta waa fanaanada qaaliga ah Kaltuun Muuse Cabdullaahi markuu ugu horeyso ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkiisa xidigaha wish aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdullaahi Xasan wish aad baan kugu mahadcelinayaa caawa farxad bay tahay inaan joogo TV-ga qaranka ummadda Soomaaliyeed farxad bay tahay kulli farxadeedii ma soo koobi karo laakiin aad baan kugu mahadcelinayaa adiga mudan waqtiga qaaliga aad siisay kulli aniga farxad kale baa ii dheer oo runtii dad badani markii ugu horeysay Kaltuun ay baranayeen waxa ku yaqaaneen bahda warbaahinta oo aniga si gooni bay ma aragtay martigelintaada caawa qaas igu tahay maadaama aad bahdeena saxaafada aad kamid tahay inkastoo warbaahinta iyo fankaba labadaba isku yihiin ma aragtay walaalo oo dad ma aragtay isleh oo fan ay wada yihiin intaba Kaltuun Muuse Cabdullaahi warbaahinta ayaad kamid ahayd hadda waxaad tahay heesaa oo heesaha tirada ayay kasii badanayaan oo xariga wad goosatay Kaltuun bal markuu ugu horeyso dad badan ayaa su'aalo isweydiinaya Kaltuun maadaama ay ahayd bahda warbaahinta goorma ayay go'aan qaadatay inay dhankaas kale u wacdo kulay wiisha waxani waa wax iska ka jira kulay hadad wariye tahayna laga yaabo qudhaado inaad ku dambaysid mataqaanaa fanka iyo suugaanta laakiin se waa wax iska kaysay waligeeba ilaa yaraanteediba waxaan iska jeclaa heesaha suugaanta afka Soomaaliga iyo luqadda Soomaaliga xoog baan u jeclaa runtii jacaylan jecelahay ayuun baa mataqaanaa igu soo dhaweysay inaan mataqaanaa maanta aan fanki dhex galo laakiin ma jeclin fanaanad lagu sheegay waxaan jeclayn wariyahayga aan sito hadde barnaamijku isma qabanayo maadaama uu barnaamijkan fanaaniinta aan ku casuumo dabcan hadda wariye aan leeyahay waxa laga yaabaa barnaamijyo kale inaan isku arki lahayn balse hadda way ka duwan tahay caawa oo barnaamijkii xidigihii ayaad marti u soo noqotay waan gartay dabcan dadku waxay sugaan boo fanaanad waqtigooda ay la qaataan oo heesto heeseeda u soo bandhigto taariikhdeedii iyo ma aragtay nolosheeda ka hadasho waxyaalo badan ay qabaan dadweynaha aan ku weydiino su'aalayn ay ka mid ahay fanku kuma ay dhalan oo sidaad sheegtay waa wax kugu jira yaraantaada ilaa hadda bal taariikh ahaan fanki maadaama aad fanaanad tahay fanaaniin hore u soo jireen waxaa dhici karta inaad fanaaniin badan aad dhageysan jirto aad jeclahay fanaaniintaasi yaa kamid ahaa fanaaniinta aan dhageysan jiray waxaa kamid ahayd Saar Axmed ilaahu naxariista Allah ya rahmo waxaan aad u dhageysan jiray Khadra Daahir Kinsi Xaaji ilaahu naxariista xagga ragga waxaan dhageysan jiray ilaahu naxariista Maxamed Saleebaan Tubaa حسن سمتر هيسيس أبون شعره هاي شوبنا من شعره أتقدر شوية أنت أبغى حساسة Kaltuun wariye baad ahayd bahda saxaafadda baad ka mid ahayd mid ka mid ah TV-yada Soomaalida sida aad kala daawada ayaad maaragtay wariye barnaamijyo ayaad ka sameyn jirtay nooc walba baad fanki baad ka sameyn jirtay barnaamijyo gaar wacyigelin baad qaban jirtay inta badan ba dadkuna aad bay ilaa hadda bartaada social media kala socdaan oo waliba aad joojin go'aan ahaan maadaama aad hore u jeclay goorma ayaad go'aan ka qaadatay heestii kugu horeyso la soo banaan baxdo oo dadweynaha la hor imaatay maxay ahayd heestii ugu horeysay aan dadweynaha la imaado aniga dadweynaha iskaga bartay ama dad fara badan ay soo qaadeen kuwa shil alla meynantii wariyaha ahayd ba waxay ahayd hees la yiraahdo dheereeya caashiq marka in heesta waxa lahaa
mustafa dafle haye ayaa heesta lahaa ereyada ku sameeyay ereyada sagaas ka lahaa haye laxankaana saaray Haye. heestii ugu horeysay aan laxan saaro haye muusigana mustafa tumay marka heestaas ay heestii ugu horeysay kaltuunay dheereeya caashiqu waa heestii ugu horreysay masraxa kusoo kortay ha oo lagugu ogaaday dadku waxaa laga yaabaa in ay warbaahintu say u hadalhayeen hal mar aad dhankan kale u wacatay صح hees caashiq ka hadlaysana waaye ma aragtay waad sheegtay oo caashiqii baa tilmaamo weli aad sii daba dhigtay oo dhahday dheeraya ma wax gooni ah baa jiray oo kaltuun ahaan heestaasi lagu alfamise abwaanka kula gartay maadaama sidee bay ku bilaabatay oo aad heesa ma xafladaha kalaad hore heesada leeyihiin ku heestay mise heestan kaliya unbay ku imaatay inaad fankaba gudaha usoo gasho may kolley maxay wiisha waxaa abwaanin fara badan baa waxay ii soo bandhigaan heeso marka heesaha ay soo bandhigaan hees walba iskama qaato laakiin heesta ay gasha ee aan israado alla ilahay aniga tay gashan israado alla ilahay tan way ku taabatay ayuun baan mataqaanaa ka qaataa heesta dheereeya caashiq aan ku sheego taariikhdeedii anagoo meel iska wada fadhina anaga iyo mustafa iyo xaaskiisii maxay tahay sabax iyo kulli anagoo meel wada fadhina ayaa heestan mustafa يعني وحوسن سميني قدي إنه يسقو سميه هستا ولحن يحاول صار كبعدنا هستا يريد يدوم بسقم تقانا أخرين بأركيو دويتنا مركزو حلي دير يعاشق وقرمو يدافو مركا شعال كا ديرين يقرمو يدافع الله يعز ها أيان متقانا يغير نقطة متقانا كلمة يرى عصبه دوارنا دير يعاشق adoo iska fadhiyo yani nabad qaba ayuun buu ku second ku imanaya waba ka ku dhaafay marka Mustafa aan ayreeda ka jeclaado ku yiri Mustafa heestan isi markaan ku yiri Mustafa heestan isi wiya wuxuu iga qaaday ku dana qaaday hada markaas isma tijaab hore isku tijaab adiga may ka bacdina Mustafa wuxuu iga yiri wad ka ciyaartay marka kaftan buu weeliyay iska ciyaarsa walaal ma yara kaga dhibay marka ma ciyaaraya heestii dib aan ku leeyo heestii sidaan ku qaad aan ku duubay heestaasi si fudud bay ku soo gashay ayaad ma aragtay fankaagi bilowgada ayay ahayd heestaas way taariikh badan tahay bal inta aan hadalkii iyo taariikhdaada iyo fankaagi siduu ku socday iyo sida aad ma aragtay heerka aad maanta joogta aan u guda galin waxaan jeclaan lahay barnaamijka horta marka ugu horeyso maadaama dadku ay wariinimo kugu ogaayeen inta badanna aan filayn ma aragtay in barnaamijyo badan aad ka soo qayb galno barnaamijkan caawa TV qaranka habeenkii ugu horeysay uu yahay barnaamijka xadiga bal heesta ugu horeyso aan jeclaan lahayd inaan barnaamij ku daahfurno bal fartuun oo aan wariye ahayn aan daawadayaasha tusno caawa waa heestee waxaynu barnaamijka ugu daahfuraynaa heesta la yiraahdo xurmo حرمه وهجاج أريدي أسكال هرت يدا وحى إسكال أبوان دلاي عبد الله حسن جني إن حسن جني عبد الله حسن جني بعله هذا وين هي لحن كي موسيقى لحن كأنا ساري أو الحميس ده بتاعه واسكال أنا وتوم بس هي موسيقى نوحة الأستاذ معلن شيخو بشار شيخو بشار هي قراءة aad waxaan maleynayaa heestan abwaan dhalay oo sameeyay iyo macallinkii muusiga sheego bishaar oo dad badan muusigiisa garaacadaankiisa aad u jecel yihiin iyo adigoo ma aragtay saxaafadii fankina qayb ka gashay laxankii kulana bal aan daawano hadalka aan ka yareyno hadalka aad baad mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha badan oo nala daawada heestii ugu horeysay barnaamijkaas ay ugu tala gashay fanaanada qaaliga ah kaltuun muuse cabdullaahi oo aad hore ugu taqaaneen bahda warbaahinta balse caawa tiri karag oo laba saar nala daawada heestii xurmo iyo fanaanada kaltuun daawasho wacan
يا سلام يا سلام هدي أنا الكاس كقدمنا هستي حرمة فنانة عنك كلثوم موسى عبد الله وحن في ليا إن هذا هستاسي سعادة وجود هشين وهذا وضع جعلاتين سيدا أنا قبل كل حياة وجدين إن كلثوم وهذا جدا هسن حرمة وهس أدو قيمة بدن إن أبوان كنا إن ريقي مله أيو مارت أبوان علوس فيك صباح أدو وين أبوان اللي بحد كسوق سهل هذه حرمة هستاسي بدنا أبوان ذا وأدقت هاي ما أردت إنه يقف مال سكفرية هسه الله توتان أديك بالهستاسي سيدي بكون سوق شرط مركوب ورئيس هست وحيجو سوق شيء عبد الله حسن جني أدبون سلامة يسقيو إن عروتي سي حاسكي سبات بون سلامة يا رنتي وشخص عادي عاد متقنع يجو قالية إن عبد الله حسن جني إن مركا عبد الله حسن جني هستن كلمة هس هرو يدي بين نارورو عبد الله يدي بي مركا إن نارورو حيهد هس برامج كان كسر قادم دونا نارورو إن شاء الله إن مركا نارورو حيهد هس على تاني نوع هس شعيلة مركب ما دام ودعلا على كيدي بتعلن إنه يدي بنقطة موت. مركب ما أردت واتحنس ده بس عضو. واتحنها. إن تاس دبنا سجورة صدقنا بل. إن ضد بدنو فنانين بدنا بمجال الله إنه حلا كاركود أي كهلان. أما جعيل كسامر أما هسجوني أي ما أردت. إن كهلا يسو إنه كهلان. ما مجال الله بدنا taasi su'aashaasi way ku haysaa dib bay maarad kugu soo noqon doontaa aad ka fikir doonto waxaad kaga jawaabi lahayd fankaagi maadaama heesta ugu horeysay oo ku dhiibay abwaan musician dafle mustafa dafle oo ahayd dheeray caashiq heestaasi si oo maarad fudud ayay ahayd maadaama aad heesta ereyada ka heshay ayaa tiri maarad waan qaadayaayo idib wuu malaysan waayay ilaa heesta ka qaado فكان سوسي سعودي. هسه مركان قاضي. كل هذا هسه إلا ما كبدن تهساقي. هسه مركان قاضي داير يعاشقه وان إسكا فريستي يعني هسه بمتقنا مدمن قاضين. مركان يعني dadka idii regelnay runtii lambar 1 waxay ka ahayn Mustafa Daflaan aad iyo aad ugu mahadcelinayo runtii oo mataqaanay aad iyo aad fankaaga yani gacan weyn iga siiyay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa ayaa mataqaanay igu dhiiriyay dad aad iyo aad u fara badan oo runtii igu yiri maxay tahay maxaa kugu dhacay maxaad mataqaanay la hawl qabtay ana waxaan si maadaama aad wixii bilowday oo dadkii wajigaaga arkeen bal hadaba waaye waxaan si baad ku siira wad laakiin to be honest with you fanaan isku haysto fanaan inaan ahayn isku haysto laakiin aad iyo aad waxaan habi uga inaan bahda warbaahinta ku jiro oo aan wariye ahay mid kale wariye inaan ahay wacyi gelineed inaan ahay oo aan jecelahay ummadayda inaan mataqaanay wacyi geliyo oo wixii jiro aad kala hadasho u sheegto dhowr jeer baan aniga maaragtay aan barnaamijyadan daawada baraha maaragtay meediyahan aan aad kaaga daawada waan kaaga madcelinayaa sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed maanta wax baahi ay kaga badan yihiin mal wacyi gelinta aad bay uga baahan yihiin waan loo baahan yahay shakhsiyaadka Soomaaliyeed oo wax ku soo kordhin kara mar walba inay Soomaalidu wax u sheegaan aan u soo noqono barnaamijkeen waa un funky iyo sheekadiisii wacyi gelin baan ahayo inaan soo galo khasab ina gees kale ka soo gelisan aad doonaysaa anoo cilaya waxaan jeclahay in aad ka degin jidkii oo fanka inaad iga degin heestaas dheeray caashiqu waad iska fadhiisatay markii aad qaaday muddo intee la eg ayaa ma aragtay u dhaxeeyay inaad heestii labaad qaado heestii labaad soo bandhigay waxay ahayd heesan Cabdullaahi Xasan Gane Naruuro heesta labaad oo maaragtay barnaamijka Naruuro hadda aan soo qaadan doono inta aan u soo gelin bal Naruuro maadaama xurmo ay xambaarsan tahay sheeka Naruurna ay tahay calaacal bal horta aan wada daawano heesta calacalka ah bal aan ogaana marka meesha ay iska haysato heestii koowaad xurmo oo abwaanku sameeyay iyo Naruuro bal meesha ay iska soo gali karaan iyo sababaha sababay inuu labadaas abwaanku intuu isku xiriiriyo kartoon u dhiibo waan daawanaynaa ilaa hore loo yiri warka dhaxdiisa ayaa war ku jira kartooday صح daawasho wacan heesta labaad barnaamijkan ugu talagalnay heestaas oo Naruuro heestaas oo ay ku luqad doonto fanaanada caanka ah
kaltuun muuse cabdulaahi ayadoo ay dib noogu sheegi doonto muusiga macaan oo aad ku daawan doontaan heestaasi iyo laxankaba qofka maaragtay ay ka imaadeen bal marka ugu horeyso nala daawada heesta Nururu
وهجاج نفسي لو ما يرت إلى يعني نفسي ويرن كالتوني نفسي والله أرضا قفل بوح نكتبري ليه وبنجي هذا العقد قلته بالعقد هذا بعد دي وقرنسا دي وقرنسا هدي العقد قلنا هذا العقد ما كوتال ومايا نفس هذا قلته بري وهلسا وكوي منا كل هذا فهم هذا فهمي أبوانكو هسا وحسكو دبا دقي هاي والوجيدا ما أرتي إن أبوانكو وأبوان لسعود وعيب بدنا لقيابا ما يسكت كترجمة يا أمالينا درين دبا horta heestan aan kaaga warramo dad fara badan heestan markay maqleen aniga igu soo tabalayeen waxay yiraahdeen abwaanku wuxuu sameeyay heestan iyadoo uu sameeyay moogta marka laakiin se hadda waa kala lixanayo waxa sida maadaama martay ku tahay kartoon si toos ah u aadin balse ayada ma aragtay albaabada inta u gargaraacday ha furto bal hadii furayso والله أبغى ما سنتي ويشوا كل لو رينا كبحسن وإنه لكن هستن أبغى كملك إيدي بي إن وحن متقنع إريد هستن كشرة أين آدي أدرون توجهلا إن وإريد متقنع فرحة هذه نقول نيد شبنت الروح كله إن يعني بالعادة كيسا ما كانوا يجي تذكر واحد وضع نقطة قف ولا فرحديس واحد نقطة إنه قف كله حمانتيس نيد إنه قف كلها وتنتو وكعياره مركا إن ده سومالي أردن بانا ساس وده نقطة رونتي ما هستن هس قاس أديك ما أردت كأنك ترجميس كل أنا قد يتشبه يقول أنا ده بين شيء مختلف ده شيء مختلف كل أنا قد يتشبه يقول وبالآدم بانا هو حنون ولا إني يتشبه فرح الله وده وهو ولا مختلف قرتي يقول دعني يتشبه يقول دع فرحنا يقول دع ذي يتشبنا يقول ندع ذي وانا يقول دع دونتا إن شاء الله حدنا فرحنا يقدم من دونتا إن شاء الله ده هذا إنت نولا ولا وذ السوقية ولا وذ السوقية صح لكن هستن إن وحن قاطي وهس أدمد إني وعي قلين تاعي يا صح يقدر ننتقصه تيجي الشذي إنه حسقه نفس لو ما يعده يمكن ما دام أوفر بدنيا قربها هذا أقصد بدنا ذاني إن حاجة قوسسك دباتوين أدو فربضن با كجرو أدبا مارتو حدو تاي إن قف واي أرجو سوجو مدن قربها يوريجي إن مثل ده هسه إن سيابها يا كبدا وحالات كحلتي والله هسه ما دام أكتر جملة سيد أحرب بدن وش هسه هرت أنا بريبان كاهي كودة أذيكنا وذيعت وكتابته كل أذيكنا لفتي وكتابته تصفر بدن ويتابت تصفر بدن ويتابت هالسنة أبي وتابت هالسنة يعني إن أي برجع صباح حظي يعني برشدة سومالية عادي أبي هالسنة وتابت مرة واحد مقلي حيتين ورياش قارو متقنع له بشاش تحمر لقى راعي أيام متقنع إنه لقى شو تبغى سوي بروح وكله متقنع يقد دقيش ثانية هستني إن عبد الله حسقني أيام فيه لحن كأي موسيقى موسيقى وحس كله إن مصطفى طفله لحن كان ساري أديك وابا إن بعد ما لحكها وابا كهلا بقى كده بدعبة إن كلي إن وحنفلا يا مارتي بدنا أبا سيدنا هدايبا أن أرارتي وهاي أما هذا الكي وريها فلان أنت بدنا أبا هسا وإسكر ريحان أو أبوانكو حلين أما أبوانكو ويدين أما هسا مقصيصو أو هذا ضد بدنا وفرت يكوسو جوديين وهسا نرورو أو لسلها أما يبقى كرتون بكترجميسا وأتكلم اللي حتى أجيدا هسا ما دام مدكو وان أطفنكو لح جرتي حدنا وحنو أركها إن هسا أدو فرد بدين هذا أو أنتي ما أرتقف عصب وأنت أسكت جري كفر بدين هساس أنت سلاك هس بعد سلاك هاي أذية يكاترجميسا كجرت هدي أنا ما أردت عاو أدب واحد جرا دور هسود واحد جرا أنا جو خاصة طلبتي أنا جو طلبتي نفط هذا طلبتي نفط هذا طلبته هذه كاترجميسا مركب نعسا شكله محاكم ده هساس إن ولي هساس ما يصابحين لكن هساس وحليضا نفط هذاي نفط هذا الله عليه مكت waxaa heesta curiyay in abwaan dhalay ina xasan sheekh muumin
وأبوان كله ما أردت دشيسة حسن أي شيخ حسن من قانو عنا عريه إن عبد الفتاح عريه حسن شيخ مؤمن أيها هستا متقناي إن سمي لكن ولي ما هستا ولي ما تصار ها ما يصابحين لكن إريد سجى سكاله سجى وشجع وحنقول حربة هس مرحبا كبعدنا عرجينا إن برامج حقيقي ساعة كبعد أما دبلتك هنقدر إنها هستا كسب بنيجي دونت إن شاء الله تفيق هاي مركا هستا نفتيدا لهالليا أنا نفتيدا لهالليا ده وكاس ونفتيدا سيابو بدن با نفت لوغا لهالله ما دنكي جعيلك ما دنكي قوسيغا ما waxaad aragtay oo aad rabto inaad ma aragtay siyaabo badan oo qofka bini aadanka hor u ahaa inuu wax ka bedelo siyaabo badan baa jiro kartuunay bal aan mar kale su'aasha dhankaaga falaarta u soo qalluuciyo waxay tahay كل يوم waxaad leedahay waqtigeeda heestaas markii aan soo bandhiga ayaan jeclahay inaan ka hadlo mise hadda ii sheegaysaa maya wallahi hees waxay ka bilowmaysaa naftayday way ka bilowmaysaa marka naftaydii baan la hadlayaa anaa naftayda la hadlayaa sinaysaa mise jacaylka dhankiisaad maarad kaga la hadlaysaa maxaa heesta naftaada la hadlaysaa maxaa kala hadlaysaa naftayda waxaan kala hadlayaa naftayda halkan aan ku waday naftayda marka ugu horeysa حمي بكوشري محيط فرحت بكوشرتي يعني وحن هيكسني فرحت بن هيكسني بالعادة بينو نهاي وحن نقول إيمان كرا عقبة نولد بين نقول إيمان كرا عادي وين بين نقول إيمان كرا مركا أنا أقول نفتي ذا مكان لها الليو نفتي ذا أنا أقول إنا يربان هاي يوروبا كوكرا ويشو أنا قلت دبتشرا أيام قرب صوغرا قرتي مركا إنا يروح هذا اللي يسوي قرب كوكرتايو يعني أنا قلنا نفتي أن ليه كسنة صح مال متقناي يعني إن كسو مشان شو الحمد لله أنكو تاجنا وأنا عبشك بحنين آدي حدنا إن ذي عقبة إسكاي من ينول الشيء وقت أو كسومريو ها عقبة فربنا بس إسكاي من ينول الشيء من أيام مركا إن وحنكو قل مني وحكو قل ما لبضوا كسومريو كنتي marka in naftayda anta adigu heesta waa taakuleynayso naftaada la hadlaysay way gelinaysay in ma aragtay macnaha waxay dhahan had Soomaalida kameero waxa badan oo ku soo maro macnaha dhibaatooyin badan ku soo martay ilow oo kale absolutely aad bad u mahadsan tahay kulli qof wax fahamsan baad tahay qof waxa rabtan aan ka gabaneyn baad ila muuqataa oo dhanka heeso badan maadaama oo jacaylka loo nool yahay oo qof walba uu jacayl ku dhashay ama jacayl ma aragtay oo guriga u koday jacaylku adiga horta kartuun ahaan si u aragtaa alla wallahi jacaylka waxaan u arkaa wax aad iyo aad u wanaagsan oo dee jacaylku markuu jacayl yahay jacaylku markuu jacayl yahay maxaa ka wadaa jacaylku markuu jacayl yahay maxaa ka wadaa kartuunay kallay dadku waxay ku wada nool yihiin jacayl bay ku wada nool yihiin wishow إن نيجي تجعل بركوة وضعنا هاي وإنه أفريقيا تنكسر وإحنا ناولنا وأين سجنا فرحت سموجد مركا إن ده هذيك لفتك أبو تجعل بتكون وش هاي مركا قفل مش عالكو كله ليه جعل كذا قرمون ولا كرا مو حاسس هذا كل جاد جعل كله هذا واحد بس مينايو لكن حدي هذوك وقح معه sometimes وأشوف تجعل كجبيس عاد ما تقنع دقت كتوريسيد يا نمعي سيبا بهاس وقاد تجعل كوع تجعل كلمة وضع هلا قلنا كتشر لا ودي لا ما أردت تجعلك وبحث طابع نمعي سيد عادية مركا أدب السلام علينا فنان دين غالية ما أنتوا كوح ماذا وحسن سيء قلنا كتشر ودي لا ما أنتوا في عنادنا ما أنتوا كوف في عنادنا وحلا ذي داية هلي داية أدب ما سنتهي كرتون عبد الله هي إن هس ده برنامجك هاي ربطو إن أد مارتا وضيعش هذا أصاب بنكتو هاي هس صدحات وحيس كله أبوان داير هاي لما إسماعيل عبد الله هاي أو كنا لما قال هذا مانشستر أبوان دما عاد بنو سلامة يا إن ميوزك يا لحن كوحيس كله الأستاذ معلن شيخ بشار واو هسان وحي دون اساس ku qaata marka mع laxanki sheego bishar maan arkin asagoo la sameeynaa inta badan alla sheego bishar laxmadiisu music baan ku aqaanay miya waalanta sheego bishar laxmadiisu waa kala dhaqaaq waxaan ku hada loo maceliyo marka heesaga marka
هسه مقعد waxa la yiraahdaa ka xaroobe ya ka xaroobe oo ya ka xarooday ku haysta waa naxabe ya waa naxay oo naxay ka xaroobe ka xaroobe heestaasi waa hees hadda ما والله هذه ما وشوه ونص شقة تكتب تيفيك وحقول له هكبت يا هكبت وحقول له وأصلا نقدر وأنا اسكسب حيل هكبتي هست بالهرتا أنا داونه كحروبي بالهست وحق فرن هذا الرياض أبان كل لحب حدونا عني داوداشة قيمة بدنا ونلا داودا هستي سدح هذا برنامج كا يقول لك شفنا ده كلتون موسى عبد الله هسه صلى الله مع بحضي كحروبي أيضا بشيك دون تبرك هسه ماتو قفك أي كحرودي رياضنا إلى ميسام داوديالو حلدا عدوكنا ولو حدقيا
يا سلام يا سلام كل أنا وحني لا كرتونة هوب كنيك دجال باصعده هوب كنيك كرتون كحروبي ونوجد فرين عد وقاصة أنت سكك حر أنا يا أدي بدو حنو واحد كجرا كرتا فنان كبا سلو هست وراح السنة هستني كل إن ترجمة سلقيا ما حبله هودن ما حبله هودن ما نسترق عليه ترجمة موقتها حبله هودن والله ما أها فرين جونا أو مارته كترجمة فنان ده أم بس أسبان مارت وقاته بس وحنلاقيها إنك حبله هودن بوحيبيلا مثلا markay ku yara kacdaba waxayna ka xarooyeen هسه مركو ما أردت هي لعد أضويلسة قبل صباح قفكي ما أردت اللي جروا حالتيسة وابلغ حروبا يابا وكحروبي حروبنا وندي باهنا ونسكو باهنا دوا يسفع نودق يا وابديار بدو جداي يا كرتون كرتون هدي هساقي ما دام أضحدا إلا يدور هس أتسيق هدي صح فنكاجي weli maan arkin kartuun oo maaragtay dhehayso meelaha xafladii iyo meel la soo baxay ayay maaragtay ka heysi doontaa mustaqbalka dhow ama midka fogba mid ku raba ha ahaadee ma kugu jiraa inaad maaragtay meelo badan oo dadkii aad maaragtay taageerayaashaada aad joogay inaad u tagto oo aad bandhigyo faneed ku samayso maadaama hadda markii hore ka duwan tahay awalka hore heesaha koobiga ay u badnaan jireen fanaaniinta sax waan gartay balse hadda waxaad u malaysaa inay ka duwan tahay bal su'aalaha aanu isdhex gelin bal taadii hore bal wallahi horta wisho aniga inaan bandhig faneed iyo aan mataqaanaa shaqo ka raadsado fanka mataqaanaa uma gelin ugumana beerin odka ka ogtooda heer shaqaalanahay وحماشة marka waxaan runtii waxaan mataqaanaa aan doonayo inaan hadaan doonayo inaan xitaa hees inaan meel ka qayb galo ama aan xaflad ka heeso ama aan mataqaanaa dad isu soo hortaago inaan heeso wadan iyo wacyi gelina isku soo hortaago oo ka qaado laakiin jacayl ma rabo laakiin aan hees jacayl dad inta isku soo hortaagay ay kale hees jacayl ay qaadaya ma jeceli marka meelaha ma dadka ma aragto uga heesaya iyo xafladaha ma aragto iidaha sanadka cusub oo TV-yada laakiin dadka meelahaygana ka xarooy ka oran doona laakiin meelaha waaweyn tagto wadaniga igu eeg heesaha hadda badan oo aad wada qaaday inta badan maaragtay waa heesa adiga cusub aad sameysay nasiibka ku saamaxay masleedahay fanki markii ugu horeeyay oo 9 burburkii dalka markuu ku dhacay wixii ka dambeeyay waqtiyadan dambe ayuu fursadi ay aad uga banaan tahay qofka rabo inuu fanaan noqdo hadii la bardhigo markii ugu horeysay 9 oo ahayd kaliya markii ay koobiga heesaha koobiga music intay soo casriyeen kaliya qaadaan hadda masleedahay fanki hadda ayuu ma aragtay ka fudud yahay oo qofka fanaanka ah oo hobbigiisu fanki yahay inuu soo galo horta aad iyo aad bay mataqaanaa wiisha horta ay u adag tahay qofku markuu wadankii jooga way u fudud tahay dhalinyarta wadankii joogta aad iyo aad bay ugu fudud tahay because wadankoodii bay joogaano demeer bay ka wada helayaan musiciankii la xamiistay kii ka duubayay kii mataqaanaa kamarda ka duubayay wixii baday wadankoodina way joogaan marka iyaga aad iyo aad bay ugu fudud tahay laakiin dadka iyaga qurbaha jooga aad bay ugu adag tahay runtii tacbaadeed farbadan laga soo maraa especially markaad qof dumaraatay hooyana aad tahay aad mataqaanaa shaqaysanaysid wadna aad kursanaysid really is very hard aad bay adag tahay aad bay adag tahay wallahi sad hees ku qaada because waqti bay ka dilaysaa inaad meeshii tagtid inaad yani laxankii leeyahay inta fanaaniinta badan habeenkii saqda dhax ay shaqeeyaan iyagana kala mid baan nahay anigu si waxaan hooyada 8 anigu qoliyaha 8 hooyadana anigu moogtahay marka de 6 waan ka aroornimo oo shaqo taga marka isma qabanayno aad bay ugu adag tahay aniga runtii aad bay ugu adag tahay haddii aan de dhowr heesooda kale wadani xoog ku soo saaro wadaniga markaas lee xoog saar haddii aan dhowr heesooda wadani xoog ku soo saaro wisho wariyanimadeeda dacalka haysanay fanki soo wadana lana waa baahan tahay waxaan ku soo dhawaanay gabagabadii iyo gunaanadka barnaamijkan sax maadaama aad tahay fanaanad wariyana aad tahay
inkastoo fanaaniinta wariyaasha ay soo badanayeen oo jirto lak xaajo aso ayadana kamid ahayd bahda saxaafadda haddana ah fanaanad caan loo yaqaano aad baan ugu faraxsanahay oo waxaan jeclahay inay maaragtay bahdeeda saxaafadda meel walba ay kasoo muuqdaan siyaasadda hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd fanka isboortiga meel walba inay kasoo muuqdaan fursad haddaan ku siiyo maxaad oran lahayd ummadda Soomaaliyeed tan xigto yaad jeclaan lahayd inaad halkaan maaragtay salaan ama mahad celin ugu dirto meeshaan inta barnaamijka aan gabagabeyn ummadda Soomaaliyeed horta waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan inay cadawgooda meel uga soo wada jeestaan inay mataqaanaa muddo imika more than 10 years ayay mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed iscunisiistay dhiig la daaday maanta inoo cusba wadankeena waa laga qaxay wadankeena waa aragtaan si nuu rugnay waynu baabaanay waxba ma haysano adduunka waxba ma haysano de waxa weeyaan waa wax laga xishoodo mataqaanaa hadeen aqli qabno inuu aynu mataqaanaa wax isku falayno xishoonayno maanta waxay maanta inuu gacmo kor taagno give up sameeyno intaynu gacmaha is qabsano dalkeena aynu mataqaanaa dib ugu noqono wax walba oo dhacay ka midowno ka walaalowno ayaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed midna wax lagu qabsada aad iyo aad mahad celin salaan mahad celin waxaan mahad celinayaa de mataqaanaa abwaanintii oo dhan saanan qaadayo iska lahaa hadday noqoto Cabdilaahi Xasan Ganay abwaan Wandalay hadday noqoto Dhammo Ismaaciil Cabdalle abwaan Dhamme hadday noqoto Mustafa Dafle oo mataqaanaa heesta iska leh heesta mataqaanaa kala aan qaadayo abwaan yaro Maxamed Saalax Maare la yiraahdo isna abwaan aad iyo aad mataqaanaa u qaaliya oo wadankii jooga waad aragtay malaha waana qora waqtina uu qora Maxamed Saalax Maare ina xasan muumin iyo maxay tahay عرية حسن شيخ مؤمن أبوان فتاح حسن شيخ مؤمن عرية إن عاد بنو سلامية وحنا عاد سلامية فنانين تأردن أو سكوت الطوبان أنا كلا قاعدين لما نتود بعد بنو سلامية موسيقى هذا موسيقى إيتومي أو وريو متقنا يعني من الأستاذ شيخ بشار عاد بنو سلامية waxaan kaloo aad salaamayo Mustafa Dafle oo aan inaba ilaaweynin isaga yaaruutiisay mataqaanaa xaaskiisa aad baan salaamaya Sheekh Bashar hooyadii iyo xaaskiisa iyo familkiisa dhan aad baan salaamaya runtii dhamaantoodna abwaaninta dhamkooda saaxiibada qaali aad baan salaamaya idil xaaji idil barkad Umar oo saaxiibaday moogtahay aad baan u salaamayna idil waan salaamna anaga idil la daartay ana aragtay moogtahay jaaxayga إذا برقت أبى بسلامة مرة بعد يبرز حد هاي إذا لا أبى بسلامة يا عرورتي عرورتها برتها أنا أبى بسلامة يا عرورتي ذي صدق ذي وبدها عندها عجيب هاي ده أبى بسلامة يا ما شاء الله يقوم من إفكار ده متقنعه الآن تدبر وأبحث أنت أبى بسلامة يا عرورتي ذا هو يذي معان صفي أحمد موسى وهديسة كنول ما شاء الله أبى بسلامة يا walaalaha ay isku wada duuban dhamaantood ba aad baan wada salaamaya oo qurbaha jooga qaringeeska jooga qaanoodo jooga aad baan salaamaya adiga wiishana aad iyo aad salaanta boqortooyada ku soo gudbinay mid lamid ah kaltoonay aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan wada qabanno Yusuf Garbi waa salaamaysaa aad iyo aad baan u salaamaya waan mahad celinayaa boqolkiiba boqol aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa heesta afraad barnaamijka aan ku soo gabagabeynay heesta afraad waxa la yiraahdaa dood xormaan soo aragnay waxaan soo aragnay naruuraan soo aragnay ka xuruuma aragnay hadda dood imurna dooday taagantaa ka shadanta dooday taagantaa dooday radiyaas kale ma falaqayn karo waxaan ku xumaa dood inaan falaqayn karo waa ugu gaaday markii aan barnaamij gabagabeyn rabaad baarta dood keento yaa erayda iskale dood waxa iskale abwaan aad iyo aad u daayar oo qoraaya buugta qoraa Maxamed Saalax Maare yare ها أياله محيط لحن كتود وحيسكال مصطفى ضفله ميوزك أنا مصطفى إسكاله إن هستا إن أرت أبوان كا مارة أتبن متقنا يسي سوتش على رنتي مارة يره وأنا إن متقنا إن أدب يقولي رسمي احترامه أنا وأنا أدبن احترامه
دوانا قرها بوجا مرتي أنت نبوك بقرأي كمان ودك إني ممكن لقى سوق حي يعني قرا بوجا قرا هدراوي يدو إنه غير عن مكتب وانا ذي هذه والله باين مركي أدب وسلام بس سجون وسلام يسلم محمد صالح مري أدب وسلام يا أدب كاجم هتعلننا كرتون سيد وناكسن البرنامج كان يجلس صغير بقشي وان كاجم هتعلننا يا فرحات جوني بقيت هاي ما دام أبهد والبهين تكملت هاي فان كاجونا ما رت أدي أدبان وجهله هسا قاركود أدب يسوجيتين إنه حن كاسوجينا بمارتو عيقلنتي يو برارجنتي هسي أد جعشة مدة ودرجة أحد مرات كبر رجسو. برامجك هلا أو كان كباحد وين إن شاء الله ونسوي من دونا دام الله إلى الذكرى النقطة. داوديا شقيمة بدنو وحان أنت سكوسو قبلنا برامج كني حدقها ومرتي واحد فنانة كن وريه كرتون موسى عبد الله أو كمذا فنانين تا كنا قندل كان إنجليزكا بس المركزنا الصحفيات رقعداء أنا أجعل إني برارجس أمد الصوماليات وحولبو أما وساعد والباقي جوجان إن أي كوعي جلسوا ملك أي جوجان وقت والباقي هدي أدقي هدي فرحتها هنا أي قيب كلا قاعدته الوعي جلنا وسميسو وح برامج كان حاجة فرسمة سيدا جاركة أو قروح البدن إيجا قابيي صاحب كي يوسف إبراهيم يوسف قرري وحنا برامج كيدين داديني أنا عبد الله حسن محمد ويش aniga iyo cartoon iyo Yusuf Garbeeba waxaan ku dhaafeynaa heestii la magac baxday dood daawasho wacan Isku torta budaneyo, dahabi lu
caashaqa waan dulqaadani farxa dooriyo aan daliil helo dilka caashaqa waan dulqaadani farxa dooriyo aan daliil helo cirkani daayeen ku dirsaday دايمو هبت